ku soo dhawaada JTN tabintan waxaan ku eegaynaa ninka laf dhungashay ku noqday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee uu habeenadan hurdada kala dilayahay ninkan oo hadda ka hor saaxiibtinimo kala dhaxaysay wada shaqayn la lahaa balse ku soo kala jeedsaday oo hadda duulaan ku ah Moscow waa qalinkii macalin ganay aniguna waa Axmed Awga Prigozhin ninkan ka dhex bilaabay dawladii uu gaashaanka u ahaa ay caanimadii soo ifbaxday markii ay kooxda cadaysho shaqaasha ee Wagner door muhiim ah ka qaateen dagaal ka socda dalka Ukraine. Prigozhin waa madaxa shirkadda gaarka loo leeyahay ee ciidamada Wagner waxa uu qandaraasyo ku qaatay inuu ka dagaalamo dalka Ukraine halkaas oo door muuqda ka qaatay iyadoo ciidamadiisu ay saameyn xun gaarsiiyeen ciidamada dalka Ukraine iyagoo calanka Ruushka ka taagay magaalada aadka loogu riiqmay ee Bakhmut bishii la soo dhaafay. ciidamada Wagner ayaa guushan soo hooyay waqti aad loogu baahan yahay maadaama uu dagaalka magaaladani aad u soo jiitamay 15 bilood ee la dagaalamayay. Prigozhin waxa uu guushan uga faa'iideystay inuu ku dhaliilo dawladda Ruushka isagoo dusha ka saaray wixii fashil ahaa ee dhacay intii lagu guda jiray dagaalka magaalada Bakhmut. Eedeyntan ayaa keentay isfahan darro xoog badan oo soo kala dhex gashay kooxda Wagner iyo wasaaradda difaaca dalka Ruushka. isfahandaraas oo gaadhay heer cusub kadib markii hogaamiyaha kooxda Wagner uu sheegay in ciidamadiisu ay ka soo gudbeen xadka Ukraine oo ay soo galeen magaalada xad ku taalla ee Rostov isagoo sheegay in uu la dagaalami doono cid walba oo isku dayda in ay soo taagto. ninkani waxa uu su'aal galiyay sababaha Ruushku ugu duulay dalka Ukraine isagoo ku tilmaamay in wasaaradda difaaca dalka Ruushku ay dad ku maaweliso in Ukraine ay soo weerari doonto Ruushka iyadoo wadata NATO waa haddii ay ku biirto arrinkaas oo ku tilmaamay waxba kama jiraan. khudbad laga siday TV-ga ayuu madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ku sheegay in gadoodka ciidamada Wagner ay tahay khaain wadannimo isagoo intaas ku daray in cid walba oo ciidamada military ka soo horjeesta la ciqaabi doono. gadoodkan kooxda Wagner ayaa yimid kadib markii hogaamiyaha kooxda Wagner Mr. Prigozhin uu dawladda Ruushka ku eedeeyay in wasiirka difaaca Ruushka amray gantaal la dhaco goobaha ay ku sugan ciidamadiisu halkaas oo ku nafaayeen ciidamo badan oo ka tirsan kooxda Wagner uu hogaamiye Mr. Prigozhin. haddaba maxaynu ka naqaanaa Prigozhin oo jiray 62 sano waxa uu sanadkii 1981 lagu eedeeyay dhac iyo fowdo kadibna 12 sano xariga ayuu laastay markii la sii daayay waxa uu maqaaxi ka furtay magaalada Petersburg 1990 waxayna ahayd meesha ay Putin iyo madax kale oo dawladda Ruushka ka tirsan isku barteen taasoo horseeday inuu qaato qandaraasyo waaweyn oo lagu naasnuujiyo taas oo mar kalena keentay in loogu yeedho dabaqi Putin. Prigozhin ayaa markii dambe u balaarsay ganacsigiisa dhinaca saxaafadda iyo budhcada internetka ee abaabulan taasoo keentay in dawladda Mareykanku ay ku hayso fargelintii doorashadii madaxweynaha dalka Mareykanka ee sanadkii 2016 waxaana qirtay sanadkan 2023 inuu isagu aasaasay oo hogaamiye kooxdan isagoo sheegay inuu haysto ciidan kayda oo gaaraya 50,000 oo askari. si kasta ha ahaatee ciidamada caloosha u shaqeystay Wagner ayaa ka soo howlgalay dalal badan oo dunida ka mid ah kuwaas oo gobollo badan ka geystay meelaha ay ka soo dagaalameen sida Central African Republic, Mali, Syria, Libya iyo Sudan oo waqti xadirkan lagu eedeeyo in ay qayb ka yihiin qulwatooyin ka dhacay dalka Sudan. kooxdan ay aad uga shaqeysta oo fadhiista macdanta dalal badan sida horey loogu eedeeyay gunti iyo gunaanadkii arrinkan gadoodka kooxdan ayaa saameyn xoogan ku keeni doona dagaal ka socda dalka Ukraine iyadoo aan la saadaalin karin sida ay xaaladdu noqonayso maadaama labada dhinac ay isku hanjabeen isagoo Putin wacd ku maray inuu ciqaabi doono haddii awaamirta qaadan waayaan halka kooxda Wagner ay ku hanjabtay in ay la dagaalami doonto cid walba oo soo taagta. maxaa laga filan karaa doorka NATO iyo dunida galbeedku muxuu noqon karaa warbixinooyinka dambe ayaan ku eegi doonaa idamka alle.